maantana waxaynu joognaa berbera oo biyogelintii wadda dawladda hoose kolley maayar cabdishakuur maayar qaboojiyo horta berbera ilaahay u dhex dhigay hadday magaalada kulushahay cabdishakuur cidin baa joogo waa kan xilka faraha badan laysa saaray maayar aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waxqabadkaasoo golley golayaasha deegaanka ee somalilan ee wakhtigeenniya ayay tusaale u tahay annaguna magaalo mug weyn baannu joognaayo hanu iska ceerceerna kolley wax badan waannu qaban doonnaa insha allahu tacaala in badan waxaana laydhaa war meydaan cabdishakuur arag siduu caynkii wax u qabanaya siduu wax leeyahy kelmaddaas kolley waynu hor taagantahin maalmo dhow annaguna haddii laydhaa waan guntigaannu dhiisha iskaga dhigi doonnaa dee berbere waa layskugu yimid berberna tii hore maanta noqon mayso waa berbere ka gedisan cabdishakuur obereeshiko wadaana waxa weeyaan wuxuu u gogol xaadhayaa inay berberi noqoto magaalada albaabka ee somalilan laga soo geliyey lagu hiranayo halkan waynu iskugu wada iman doonnaa khayraadkii ugu weynaaba cabdishakuur dabada ku hayaa aan cidina hayn marka inta uu dadka dheer yahayna waa biyaha weyn ee daba yaallee insha allahu tacaalaa hore u soco intaasaan ku soo ururinayaa hawshaa qabanaysaanna waa hawl taariikhdeeda huwan waa hawl haddii ilaahay yidhaahdo dadkeennii loogu adeegayo waxa weeyaan xil bayna wada saareen insha allahu tacaala annaguna qaybteeda waa gudan doonnaa